adiga korneelka xasaaran leh adiga gudoomiyaha degmada xasaaran leh adiga midka gobolka jooga xasaaran leh adiga ra'iisul wasaaraha xasaaran leh adiga xildhibaanka farmaajo sababtoo sharci kuma joogo waxaad uga cabsataan ama waxaad ugu turtaan ma jiro meeshan ku wareejin doona inay ka hadlaan ayagana soo dhawaada meeshan waxaan isugu nimid banaanbaxaasoo ah midkii lagu ballansanaa daljirka dahsoon ummaddii ka qaybgeli lahayd ee Soomaaliyeed oo banaanbaxa nabadeed ka qaybgeli lahayd jidadkii baa loo diiday meel walba loo istaagay waxaa la diiday qof lug ah ayaa la diiday xataa wax kale iska daadadka lugeynay waa la diiday bajaaj baa la diiday lugtii baa la diiday waxaan saaka la kulmay dad badan oo aeroboortka u soo socday oo boorsooyinkii jiidahaya oo loo diiday wadooyinkii inay maraan oo dhahan waa lugeynaynaa diyaaradda kulli ku gaari maynay aan tagno waa loo diiday dhibaatada waxa ka shaqeeyay madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday Abdullaahi Farmaajo ayaa ka shaqeeyay banaanbaxana asaga hor istaagay dhibaatada jirta wadankana asaga ka shaqeynaya doorashadii ayuu diiday in la qabto banaanbaxani wuxuu ahaa banaanbax nabadeed oo lagu taageerayo in la qabto haddii aan la idmahayo doorasho lagu dalbanayo oo doorasho lagu doonayo oo doorasho madax bannaan lagu doonayo oo doorashadii wadanka inay dhacdo asagu uu diiday ayaa la rabay in lagu soo dedejiyo si aysan doorasho u dhicin daraadeed ayuu diiday madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday in dadku isku yimaadaan ayuu diiday sidaa daraadeed ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa dhibaatada jirta meel kastoo joogaan inay xoogaal ka noqdaan dalkan meeshii laga keenay baa lagu celiyay dictatoriyad xoog leh ka jirta oo fara badan oo dadka lagu leynayo oo dhiigga dadka lagu xalaaleysanayo waxa ku xigta maalkooda lagu xalaaleystaa ku xigta waxaa la rabaa marka dhibaatadii hore aan uga nimid ayaa meesha taalla maanta waxaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed meel joogtaba inay istaagto cod dheer inay ku tiraahdo sida loo maaragtay dhibaatada jirta inay ka hadlaan hadee marka arrinka asaga Farmaajo waa in uu noqdaa nin xilligiisii ka dhamaaday Farmaajo waqtigii baa ka dhamaaday 8 February bay ugu ekayd maanta waad arkaysaan awoodiisii baa shaqeynaysa waxa uu adeegsanayana waa dadkii Soomaaliyeed oo ciidanka aaway waxaan ognahay oo xaqiiqo ah tanoo kale waan soo marnay dadku inay garan doonaan ciidankii qoriyaha wata qof waliba meeshu ka yimid inuu garan doonaan yaan og ma rabna marka burbur dambe in loo noqdo ma doonin waxa uu ka shaqeynayaa waa in la burburiyo faynuustaas qof u dhiibay in la burburiyo weeye ujeedadiisu annaguna ayadan hor taaganna ciidamada Soomaaliyeed ee maaragtay qalabka sida waxaan leenahay ogolaada dadku inay banaan baxaan oo maaragtay haddii alla idmahay diida amarada u racan oo khaldan diidaan leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh